aroos dad badan ka yaabiyey oo ka dhacay mid ka mid ah dalalka Afrika. Diyaarado khaas ah ayaa buuxiyey dhabaha diyaaraduhu ka haadaan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Kano ee waqooyiga Nigeria, iyadoo xubno ka tirsan madaxda dalka Nigeria iyo kuwa galbeedka Afrika ay u duuleen arooska wiilka madaxweynaha iyo gabadha hogaamiye diineed iyo dhaqan caan ka ah waddankaas. Arooska Yusuf Buhari iyo Sahra Nasir Beyero ayaa noqday mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Nigeria. Mid ka mid ah taariikhyahanada ayaa BBC-da u sheegay in aroos u dhexeeya qoyska madaxweynaha iyo qoysaska boqortooyada uu ahaa mid aan horey uga dhicin Nigeria. Lamaanahan ayaa markii ugu horeeyay ku kulmay jaamacadda Surrey ee UK. Damaashaadka ayaa sii socday ilaa Sabtidii markii aabbihii dhalay gabadha Nasir Edo Beyero si rasmi ah loogu caleemo saaray amiirka Bichi. Walaalkiis waa amiirka Kano oo ka mid ah hogaamiyayaasha Islaamka ee ugu caansan Nigeria. Qoyska caruuska ayaa bixiyay lacag gabaati ah oo dhan 500 oo naira oo ah lacagta Nigeriaanka. Sidoo kale wariyaha BBC-da ee Nigeria Isxaaq Khalid ayaa sheegaya in sawirada arooska ka hor ay buuq ka dhex dhaliyeen baraha bulshada, iyadoo qaarkood ay dharkeeda ku tilmaameen mid anshax darro ah. Inkastoo ay jiraan warar sheegaya in 100 diyaaradood oo gaar ah ay dadku u daabulayeen munaasabadda, ayaa haddana sarkaal ka tirsan garoonka waxa uu BBC-da u sheegay in dhab ahaantii ay ka yaraayeen 50. Si kastaba ha ahaatee, dadka ka qaybgalaya xafladda ayaa tiradooda hoos loo dhigay sababo la xiriira fayraska corona. Waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka goobta ay ka dhacaysay xafladda arooska, iyadoo boolis iyo askari militari ah ay ilaalinayeen qasriga. Siyaasiyiin sarsare iyo salaadiin dhaqameed ka kala yimid dalka oo dhan ayaa u soo duulay goobtii uu aroosku ka dhacayay. Waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Muhammadu Buhari iyo madaxweynihii hore ee Goodluck Jonathan, marwada koowaad ee Gambia Fatuma Barrow iyo madaxweynihii hore ee dalka dariska la ah Niger Mahamudu Issoufou ayaa ka mid ahaa martida ajnabiga ah